af shiirka ama qofka inay u soo urto neeftiisa waxaa loo yaqaanaa halitosis. in qofka uu dareemo halitosis waxay ku imaan kartaa siyaabooyin kala duwan. marka hore asagoo caafimaad qabo wax cudur ah isku ogeyn, mararka qaarkood wuxuu dareemi karaa afkiisa inuu soo uro, neeftiisu in laga dareemayo shiir badan. sidoo kale in qofka ay jiraan marxalada caafimaad daro horena uu isticmaalayo daawooyin kaasoo uu la tacaalayo cudurro ama marxalada caafimaad daro, waxa uu ka dhaxli karaa ama ay keeni karaan in afkiisa uu soo shiiro, neeftiisana uu la socdo ur badan. soo dhawaada marka koowaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta aanan mawduucayga furin, like followga, subscribe-ka YouTube channelkayga iyo Facebook page-kayga inaan laga hagaranin lana baqiilin. inta ugu badan waxyaabaha keeno halitosis ama afshiirka waxa loo yaqaano waxaa ka mid ah isticmaalka cunooyinka sida degdeg ugu dhalan karo shiirka badan oo qofku aad inuu u isticmaalo, kuwaasoo ay ka mid yihiin basasha iyo tuunta. marka uu qofka uu badsado isticmaalka basasha iyo tuunta waxa uu ka dhaxli karaa in qofka afkiisa uu soo shiiro, ur badanna laga dareemo. sidoo kale cunooyinka qaybahooda kala duwan, junk foodska cunooyinka aadka loo shiilo, hilibka qaybihiisa kala duwan, arrintan waxa ay keeni kartaa in hilibka ama cunooyinka aadka u shiilan inay dhexgalaan qaybaha ay iska haystaan goosaha ama ilkaha, taasoo ay ku noqonayso fragmentation, inay ku qamiirto ayna ka dhalato urkaan loo yaqaano halitosis. sidoo kale in qofka lagu arko in afkiisu aad uu usoo shiirayo, waxyaabaha kale ee ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah cabista balwadaha qaybahooda kala duwan. in qofka uu isticmaalayo tubaako, uu afka uu gishanayo, sigaar aad u cabayo, sidoo kale shiishada aad u isticmaalayo, waxa ay keenaysaa in habdifaaci jirka gaar ahaan afka gudihiisa inuu aad u yaraado, lagana dareemayo afka qaleel badan. sidoo kale in ay ka dhamaato meesha faloorada ku dhex samaysaneed ama bakteeriyada ku dhex samaysan afka gudihiisa. sidoo kale inay afka gudihiisa ay ku yaraatay saliva, candhuuftii lasoo saarayay. sidoo kale in afka gudihiisa ay aada ugu yaraadeen normal bacterial flora, faloorada caadiga ah ee bakteriyada ama jermiska ilma aragtada ah ee afka gudihiisa ku dhex nool, ilaahayna ugu talagalay in wax saameyna ama cudur ah inaysan ka dhalanin, ayadana ay ku badbaadi karto. haddii ay ka dhamaato ama ay ka baaba'do normal faloorada afka gudihiisa, waxaa suurtagal ah in qofka uu dareemo afshiirka ama af urka. sidoo kale in qofka lagu arko in afkiisa uu soo shiiro, waxyaabaha ugu badan ee ka qayb qaadan karo waxaa ka mid ah in qofka infectiona afka gudihiisa ay ugu dhaceen, in qofka uu qabo waxa loo yaqaano dulduleelo goosaha dhexdooda. sidoo kale in qofka uu kusoo lalaabtay yiridka dabcan inuu ku dhacay. sidoo kale in qofka uu ku samaysmo suus afka gudihiisa ama ilkaha. waxa ugu badan uu qofka uu ka dareemayo waxaa ka mid ah in qofka afkiisa uu soo shiiro, marka uu neefsadana neeftiisu ay la socoto ur badan. sidoo kale in qofka lagu arko af ur ama afkiisa inuu aad usoo shiirayo, waxyaabaha ka qayb qaadan kara waxaa ka mid ah nadaafad darada, in afkiisa aad uusan u nadaafinin ama aad uusan u cadyeelin, waxa ay keeni kartaa in afkiisa uu wasaq badan ay gasho. sidoo kale af qaleel badan uu isku arko. sidoo kale afkiisa inay ka dhamaato bakteriyada normal flora loo yaqaano, waxaana ku dhalanaya infections kala duwan. qofkana waxa uu dareemaa nadaafad daradaas in af ur badan uu ka arko afkiisa, shiir badan uu dareemo marka uu neefsanayo. sidoo kale in qofka lagu arko afkiisa inuu aad usoo shiiro ama afka inuu dareemayo in neeftiisu ay la socoto shiir badan. waxyaabaha kale ay keeni kara waxaa ka mid ah in infectionada dhuunta ku dhaco habamareenka hoose, mararka qaarkood waxa ay keenaan in qofka uu ka dareemo afka gudihiisa ur iyo adoorka afka inuu isbedelay. afka infectionska waxyaabahaas keeni kara in dhuunta infections marka uu ku samaysmo waxaa ka mid ah tonsillarka, qanjirka tonsillarka inuu bararo, dhagxaana gudihiisa ay ku samaysanto. marka uu qofka uu darcan infectionska dhanka dhuunta ugu dhaco
lagu arkaya arrintaas. sidoo kale in fangi uu ku samaysmay wareegga hunguri mareenka haddii jeer waxaa lagu arkaa in qofka afkiisu uu soo uraayo. sidoo kale hunguri mareenka marka ay ku dhacda marxaladda loo yaqaano diverticulum, in qaybta banaanka ee hunguri mareenka inuu soo kuuste qaybaha isticmaalka hunguri meeshii laga rabay in tubada gudaheeda ay maraan, in qayb ka mid ah ee banaanka usoo kuusantay, taasoo qaybo ka mid ah cuntadana ay dhexgali karto. sidoo kale in meeshaasi ay ka dhacdo waxa ay keenaysaa af ur iyo in qofka afkiisa uu soo shiro, cunadina meesha ay ku jirto aadna ay u qamiirto. sidoo kale cudurada ku dhaco dhanka iyo gastrikada waxa ay keeni karaan in badan in qofka afkiisa uu soo shiro. waxyaabaha ugu badan ee keeni kara dhanka iyo caloosha waxaa ka mid ah dibriyo badan qofka markuu isku arko, laabjeex badan qofka markuu isku arko, calooshiisu aad ay u fadhido, in badan waxa uu dareemaa afkiisa inuu soo uraayo, shiir badanna uu ka dareemayo neeftiisa. sidoo kale marka ay ku samaysmaan caloosha gaas calooleedka ama nabraha caloosha kasoo baxo ee infectionka bacteriyada loo yaqaano Helicobacter pylori, in badan waxaa lagu arkaa qofka marka uusan iska daaweynin in qofka uu dareemayo af ur iyo in qofka marka uu neefsado lagu arkayo afkiisa inuu soo shiro. sidoo kale marka ay jiraan cudurada ku dhaco dhanka iyo sanbabada ama neef mareenada, haddii jeer waxaa la arkaa in qofka in afkiisa uu soo uraayo. waxaana ka mid ah cuduradaas cudurka loo yaqaano TB-shada ama TB. sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah cudurada sanbabada xiro, hawamareenadana culays badan saara, kuwaasoo loo yaqaano asma ama cobd. sidoo kale in qofka uu dareemo, sidoo kale qofka inuu dareemo afkiisa inuu soo shiraayo. waxyaabaha badan ee ka qayb qaadan kara waxaa ka mid ah habdifaaca jirka markuu hoos u dhaco, taasoo cudurada daaha ay saameyni karaan, ayna ka mid tahay cudurka loo yaqaano diabetic mellitus, in sokorta ee qofka ay ku dhacda ay ka sameysay in saliivada ama calyada afka gudaheeda inay aad u yaraato, af qaleel badanna uu dareemayo. waxaana kusoo xigo in afkiisa uu soo shiro, neeftana uu ka dareemayo ur badan. sidoo kale daawooyinka la iska isticmaalo gaar ahaan daawooyinka alerjiyada in badan waxa ay keenaan in qofka afkiisa uu aad u qalalo, sidoo kale ay neeftiisuna ay soo shiirto. daawooyinkaasna waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano loratadine, sidoo kale daawada loo yaqaano cimetidine oo antigastric ah, sidoo kale daawada loo yaqaano chlorpheniramine. in badan marka uu qofka isticmaalo haddii jeer waxay keenaan afka qaleel inay ku sameeyaan, sidoo kale bakteeriyada afka ku dhex nooleed inay baaba'do, taasoo suurtagal ah in qofkii infecshano afka inay ugu dhacaan, shiir iyo ur badan uu dareemayo. sidoo kale dadka la xanuunsan cudurada dhimirka ku dhaco gaar ahaan psychosiska haddii jeerna waxay dareemaan afkoodu inuu soo shiiro. waxaana ka mid ah cuduradaas depressionka, sidoo kale cudurada stresska, sidoo kale cudurada insomnia ama hurdo la-aanta keena, in badan qofka ay ku saameeyaan dhanka iyo maskaxdiisa ama psychosiska. daawooyinka uu isticmaalayo waxaa ka dhashay in qofka afkiisa uu soo shiro, sidoo kale afkiisa aad loogu dareemo ur badan. daawooyinkaasna waxaa ka mid ah daawada diazepam, sidoo kale daawada loo yaqaano amitriptyline, sidoo kale daawooyinka depressionska noocyadooda kala duwan. saaxiib yaal, halkan ayaan kusoo gabagabeynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.